السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada waa Macalin Maxmuud cashkaan waxaan ku qaadanay 10kaas eray meeshan oo saaran ereyga koowaad waa jargon waxaa la yiraahdaa luqadda khaaska u ah dad profession khaas ah joogo for example dhaqaatiirta luqad bay leeyihiin looyarada ama dadka maxkamadaha ka shaqeeya luqad bay leeyihiin injineerada luqad bay leeyihiin martaba waxaa la yiraahdaa jargon dhaqaatiirtooda camal waxaa leedahay medical jargon maxay ahayd tan looyarada waxaa leedahay legal jargon engineering jargon for example يعني qaabkaas waxay isku macnaheeyeen terminology yani waa luqad ay sila yaqaanaan ama erayo isla fahmayaan dad gooni ah ama shaqo gooni ah qabto for example the doctors use medical jargon and I did not understand yani dhaqaatiirtu waxay isticmaaleen medical jargon erayo yani quseeya medicine iyo waxyaalaha noocaas ah anigana ma fahmin yes jury waa xeer beegto yani dadka go'aanka ka gaaro keeska maxkamadda yaalo ayaa la yiraahdaa jury. For example, the jury listened carefully to the case. Xeerbeegtadu waxay si fiican u dhageysteen ama si taxadar leh ayay u dhageysteen kiiska. Ereyga saddexaad juvenile waa wax uu la xiriira carruurta. Yes, for example, juvenile court waa maxkamadda carruurta. Juvenile readers waa akhristayaal carruur ah. Juvenile prisons waa xabsiyada carruurta dhammaantood. Ereyga afraad drought haddii oo tahay meeshaas waa abaar. Yes, drought haddii oo ahaan leedo abaar. balse hadday ee tahay waxaa waayo yani dabeel qabow markii qolka soo masho taas waxaa la yiraahdaa drought. For example, there is a drought near the window. daaqada agteeda waxaa ka jirta dabeel qabow oo degan. Yes, taas la yiraahdaa drought. ama haddii kale she closed the door to stop the drought. albaabkii xirtay si ay u istaajiso yani to stop si ay maxay isaga ilaaliso ama isaga istaajiso dabeesha qabow ee soo galayso. marka drought hadday ee tahay waxaa waa dabeesha qabow, haddii oo tahayna waa abaar. Yes. Ereyga shanaad draw waa sawirid. Yani wax inaad sawirtid oo gacantaada ku sawirtaa la yiraahdaa draw. qalin qori iyo qalin qaatid oo gacantaada ku sawirtid. haddii kala rabo weyn waxa ku sawiraysid iyadoo waxaa la yiraahdaa paint. For example, I like to draw animals. waxaan jeclahay inaan sawiro xayawaanada. ama haddii kale, can you draw a tree? geed ma sawiri kartaa. duel waxaa waa qofka inuu meel degnaado ama meel uu ku noolaado. For example, xayawaanada camal waxay degan yihiin ama ku nool yihiin kaynta. Many animals dwell in the forest. Many animals live in the forest. xayawaano fara badan waxay degan yihiin kaynta. They dwell in the village. iyagu waxay degan yihiin ama ku nool yihiin tuulada. He dwells near the river. isagu wuxuu ku nool yahay webiga agtiisa. ereyga toddobaad evolve waxaa la yiraahdaa yani qofka inuu horumar u sameeyo si slowly ama wax inay development sameeyaan si slowly ama tartiib ah. For example, technology has evolved fast. Technology development ay sameysay waliba si fast ah oo degdeg ah. ereyga sideedaad exaggerate waa ka badbadin. yani wax yar ina aad u weynaysid ama been sheegid ina cusbo ku sii dartid taas la yiraahdaa exaggerate. For example, he exaggerated the story. sheekada yani wax uu ku dardaro waa cusbo iyo wax uu yeelay okay dhanaan buu yeelay. ama haddii kale, she likes to exaggerate her success. waxay jeceshahay inay ka badbadiso ama yani wax badan oo aan jirin inay ka sheegto guulaheeda. exaggerate marka waa inaa ka badbadisid wax yaraa inaa maxay aad u weynaysid wax markii hore muhiim ayaga ahaa inaa ka sii badiso waa muhiim zaid ah. taas waxaa la yiraahdaa exaggerate ka badbadin ama xitaa dhanaanayn haday sheekataa. exposure waxaa la yiraahdaa yani ina being in contact with something wax ina maaragtay aad la falgishid. For example, contact amalna la sameeyst ama cimilaha ahaato ama run ha ahaato iyo waxay doontaba. For example, too much sun exposure is harmful. ina wax badan qoraxda hoos taagnaatid oo kugu dhacdo ama qoraxda contact la sameeysid waa dhibaato ku keenaysa. ama haddii kale, he had little exposure to English before school. yani aad ugu muusan banaanayn ama aad ugu muusan la falgalin luqadda Ingiriiska iskuulka ka hor. exposure marka qaabkaas loo isticmaalo contact camal waa. Yes. ereyga tobanaad ee u dambeeyo extinct ereygaas af Soomaaligiis waxaa la yiraahdaa dabargo. wax jiray inay dabargo'aan adduunka ka dhamaadaan. had for example, dinosaurs xayawaan la jiro aad u weyn. xayawaanka iskala af Soomaaligiis anigu ma hayo dinosaur ma iska dhahaan. dinosaurs are extinct. dinosaurs xayawaankii la jiray dunidu wuu ka dabargo'a. ama haddii kale, some animals may become extinct soon. xayawaano kale dhawaan way dabargo'i doonaan. had wali waxaa la isku haystaa maxay ahayd maroodiga
waxaa leeyahay 20 sano soo socota ama 50 sano soo socoto inuusan jiri doonin oo maleyn hadda ayaan dhaweeyay xitaa the white rhino midkii u dambeeyaa dhintay marka hadda waxaan leenahay hadda wax xayawaan oo white rhino adduunku nool ma laha laban bay ahaayeen mid baa ayaan hor dhintay hal mid un baa joogay midkaas la ilaalinaya la daaweynaya inuusan dabar gooyn aan isku dayay uu dhalalo balse ayaan hor iska dhintay marka waxaan leenahay the white rhino went extinct yes rhino di cadeed waxay noqotay extinct oo dunidu way ka dabar go'day cashirkan intaas ayuu ku eegyahay thank you for listening god bless you and have